Xikmadaha maanta aan ku hayo waxay ku saabsan yihiin nolosha. Waxay ku siyaadin doonaan waayo-aragnimo iyo indhagarasho. Midda koowaad, biyuhu waa waxa ugu jilicsan, haddana waxay dilaaciyaan dhulka, waxayna dejin karaan ama dhaqaajin karaan dhagxaanta, waxay dejin karaan markab. Tani waxay si cad ku tusaysaa mabda'a ah in dabacsanaanta iyo degganaanta aad kaga guulaysan karto waxa aad u adag. Midda labaad, sabarku ma aha ilaa waqtiga aad sugi karto, balse waa sida wanaagsan aad u dhaqmi karto inta aad sugaysid. Marnaba ha is oranin way kaa soo daaheen wixii aad sugaysay ama weligaa ma helaysid. Midda saddexaad, ha ka caajisin, hana is dhiibin. Halganka aad maanta kugu jirto wuxuu kuu diyaarin doonaa awood aad berri u baahan tahay. Dhib kasta oo ku soo martay waxay fursad u ahayd koritaankaaga qofnimo. Midda afraad, marnaba ha nicin dad kaa masiirsan ama ku xumeeya. Xushmeey masiirkooda. Waa dad u arka inaad ka wanaagsan tahay. Midda shanaad, dadka qaarkii waxa ay la yaabaan ama is weydiiyaan sababta dhibaatada ugu soo noqnoqota. Ma oga in imtixaanka iyo casharrada la soo celceliyo ilaa qofku wax ka barto ama wax ku qaato. Midda lixaad, haddii ukunta bannaanka laga jabiyo, nolosheedii way soo dhammaataa. Haddii laga jabiyo gudaha, nolosha waa u bilaabataa oo digaagad yar baa dhalata. Nolosha iyo wax kastoo sarreeya waxay ka bilowdaan gudaha. Marnaba ha sugin wax bannaanka kaaga yimaada in ay ku beddelaan ama farxad kuu keenaan.